salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waxaan filayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan. ku soo dhowaada muuqaal cusub. muuqaalkani maanta waxaan uga hadli doonnaa awoodda ay leedahay ducada ama baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala la barya, annaga oo ka soo qaadan doonno tusaalooyin muuqda qur'aanka kariimka. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiid imaam tirmidi uu soo saaray, salmaan radiallaahu canhuna uu soo wariyey, ayaa wuxuu ku leeyahay wax celin kara ama radin kara qadaha oon duco ahayn ma jirto, wax siyaadin kara cimriga oon wanaag ahayna ma jirto. haddaba adiga dhibaato noocee ku haysata? dhibaatadaada ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad u sheegatid in uu kuu xalliyo xaggiisa way ka fududdahay. maxaa yeelay aayadda 9 iyo aayadda 21 ee suuratu maryam ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay, huwa calaya hayin, aniga xaggayga arrinkaa waa fuday. tusaale ahaan, ilmala'aan maa ku hayso? nabillaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu wuxuu weydiisan jiray inuu ubad siiyo ilaa uu ka gaaro da'. markuu da' gaaray ayuu ilaahay haddana dhibkiisa u sheegtay oo wuxuu yidhi, yaa rabbi, aniga lafahi way daciifeen, timahaydana cirha hurisay, maca daalika haweenaydan qabana waa waayeel, waana ma dhasho. ayadoo sidaa jirta ayaa weli waxaan kaa rabaa inaad cunug isisid. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu bishaareeyey wiil magaciisa qof la yidhaahdo uusan adduunka hortii soo marin. waxaa la yidhi, innaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxyaa lam najcal lahu min qablu samiya. adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kaa xigta maa jirto haddaad weydiisatid ilma, yacni aad aadid ilaahayow ubad isii. ma tahay ruux uu dhib soo gaaray? ilaahay subxaanahu wa tacaala nabillaahi yacquub qisadiisa ayaa nooga hadlay. nabillaahi yacquub ma quusanin, ilaahay xaggiisa kama quusanin, oo wuxuu yidhi, aniga waxaan u sheeganayaa dhibka iyo murugtii soo gaartay ilaahay subxaanahu wa tacaala. rajadiisana rajo buuxday ahayd, oo iyadoo sidaa jirta oo ilmihiis ay la yaabihiin ayuu wuxuu dhihi jiray, casa allaahu an ya'tiyanii bihim jamiica. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxaa laga yaabaa inuu labadoodaba ii soo celiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuu u soo celiyey oo arrinkiisi waa loo saxay. adiga baadida kaa maqan in aan laguu soo celin karin miyaa kaa dhaadhacsan? weydiiso ilaahay subxaanahu wa tacaala baadidaada inuu ilaahay kuu soo celiyo, waadna helaysaa. haye adiga ma cudur baa ku haayo? yacni qof dhibbaysan oo cudur la daalan dhacaya maa tahay? ilaahay subxaanahu wa tacaala ma aha mid ku shaafin waayey. maxaa yeelay nabillaahi ayuub calayhi salaam 18 sano ayuu sariir saarnaa, jirkiisana tixiri uu la wareegay jiri darteed. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu baryey oo wuxuu yidhi, annii massani yadurru wa anta arxamu araaximiin. ilaahayow dhib baa isoo gaaray aniga, adiga ayaana inta naxariisata midka ugu naxariista badan ah, ee ilaahayow ii naxariiso. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu shaafiyey. adiga mid guurdoon ah maa tahay? mid shaqadoon ah maa tahay? mid meelaas dega la' maa tahay? nabillaahi muusa calayhi salaatu wassalaam ayaa inta adiga ku haysata ay haysatay, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryey oo wuxuu yidhi, rabbi lima anzalta ilaya min khayrin faqiir. ilaahayow wixii khayr ah ood ii soo dejisay waan u baahanahay. nabillaahi muusa calayhi salaam xaaladdaasii meelaas dega ma haysanin, maca daalika shaqo ma haynin, oo nin shaqaystoo ismaarayn kara ma ahayn. ma ahayn ruux oo zawj leh masana xaas leh ma ahayn.
ilaahay subxaanahu wa tacaalaaba saddexdaba waa iskugu daray. labada gabdhood oo nabillaahi shucayb ees ereyga u waraabiyey ayaa u imaaday, midkood ayaa u imaaday oo ku tiri aabbaa kuu yeeraayo. aabba markay u tageenna waxaa lagu yidhi labadii gabdhood midkood ayaan kugu nikaaxay, waxaana kaa doonayaa inaad ii shaqaysid 8 sano, haddaas 10 ii kaamishana waa xaggaaga. ilaahay subxaanahu wa tacaala intiba waa ku wala deeqay nabillaahi muusa calayhi salaam. adiga ma tahay mid garab la'san, wax garab istaaga la'san miyaa tahay? ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma hilmaamin. nabillaahi muusa calayhi salaam ayaa xaaladda ku haysata, xaalad la mida ayaa haysatay. maxaa yeelay risaalada ayaa loo soo dhiibay oo waxaa lagu yidhi dadkaa gaarsii, asaga oo maca daalika dadka dad uu dad ka deli ay hayeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu baryey oo wuxuu yidhi wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi, ilaahayow wasiir ehelkayga ka mid a isay, oo weliba haaruun ee walaalkay ah igagay dhig wasiir. ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ka ajiibay ducadiisii oo waxaa lagu yidhi sanashuddu cadudaka biakhiik, yacni garabkaaga waxaan ku adkaynaynaa walaalka. haddaa garab la'aan tahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiso inuu garabku siiyo. wax shaqadaa doonaysid inaad qabata kugu taageerana ma waynaysid insha allah. ma tahay ruux laga qaalib noqday, yacni awooddiisa meeshii ugu dambaysay gaaray, xal iyo meel uu wax ka qabtana la'san. nabillaahi nuux calayhi salaatu wassalaam wuxuu dadkiisa dacwadda ugu yeerayay uu lahaa laa ilaaha ila allahu dhaha waad liibaanaysaana uu lahayay 950 sano. markii uu ogaaday inuu meesha dad ka soo soconina, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu gacnaa u taagtay oo wuxuu yidhi annii maqluubun fantasir, ilaahayow layga qaalib noqoye ii gaargaar. ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa u gaargaaray, dadkii dhammaanna waa la halaagay, asagana waxaa lagu baadbaadiyey doon. tusaalooyinka dhammaan aan ka soo wala hadalnay, aniga hal cashar ayaa igeyga baxay, taasoo ah wax waliba waxay imaadaan sabar gadaashii. ducada hadday tahay mid imaaday sabar gadaashii, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu aqbalayaa. nabillaahi ayuub calayhi salaam 18 sano ayuu xanuunsanaa, hal mar keliya ayuu sara kacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryey inuu xanuunkiisa ka shaafiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ka shaafiyey. nabillaahi yacquub calayhi salaam waa kii lahaa fasabrun jamiil wallaahu lmustacaan. nabillaahi zakariya calayhi salaatu wassalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ubad weydiisanayay ilaa uu ka waayeeloobay. nabillaahi nuux calayhi salaatu wassalaam wuxuu dadaalayay oo sabrayay 950 sano. markaa ka dambe ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada weydiistay. ducada waa la aqbalayaa, laakiin 2 shay adiga laga helo: sabar buuxa iyo kalsooni buuxda inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku qabtid. waxaan mahad gooni ah aan halkan ugu celinayaa qofkii noo soo hadiyeeyey microfonkan aan codka idinku soo gaarsiinayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu muraad uu leeyahay oo khayr ah allaha midigta ka siiyo insha allah. idinkana igula soo duceeya qaybta faallada waatii. haddaan intaan idin soo gaaranay, waan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga quruxda badan ee aad nala wadaagtay. haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar, qaybta faalladana uu yar ruux aad jeclaan lahayd inuu kula dhegaysado muuqaalka kani, ama u sii sheer garay. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin dhammaantiin.